Daisy Yonga ma aysan ogeyn inay uur leedahay balse 4 saacadood kadib markii ay booqatay isbitaalka iyadoo ka cabanaysa calool ayaa loo sheegay inay uur leedahay ayna halkaasi ku dhashay wiil. iyada iyo hooyadeed Maggie ayaa sheekadooda BBC-da la wadaagay. Maggie ayaa sheegtay inay meel kale ku maqaneed markii ay gabadheeda fariin ugu sheegtay inay isbitaalka joogto. Markii ay ii sheegtay inay joogto isbitaalka waxaan markiiba ku fakiray inay shil gaari gashay. waan wacay waxayna ii sheegtay inay cunug dhashay. waan aamini waayay waxaan ku iri waan ku faraxsanahay. saygayga Graham oo aan isla joognay baan markiiba ku jeestay oo aan ku iri waxaad noqotay awoowe. hadal waa uu ka soo bixi waayay balse wajigiisa ayaan ka akhristay inuu aad u farxay. waxaan maalin ka hor dareemayay xanuun la mid ah kan caadada balse waxba kama soo qaadin, laakiinse xanuunka ayaa habeenkii igu sii siyaaday. kadibna waxaan booqday isbitaalka waxayna dhaqaatiirta ii sheegeen inaan uur leeyahay. waan aamini waayay waxaana ku iri taasi suuragal maahan. iskumaanan arag wax calaamad ah oo muujinaya inaan uur leeyahay sababtoo ah waxaa si joogto ah iigu dhacayay dhiigga caadada balse waxaan dareemayay inaan yara cayilay. taasina waxaan ku sababeeyay shaqada aan ka bilaabay maqaayadda McDonald. kombiyuutar ayaa caloosha layga saaray kadibna waxay dhaqaatiirta ii sheegeen inaan leeyahay 37 isbuuc oo uur ah. xanuunka ihayana uu yahay xanuunka foosha. aad ayaan u naxay balse saacado kadib waxaan dhalay wiil aan u bixiyay Iljah John oo uu culeyskiisu yahay 3 kilogram. waxaan iri yaa Allah waxaan dhalay cunug. waan soo qaaday oo waxaan saartay dhaabta xitaa oohinta way iga soo bixi weyday. aad ayaana u naxsanaa waxaana jeclaa inay hooyada ila joogto balse nasiib daro taasi ma aysan dhicin oo waxaana kala xayira dhibaatada fayraska corona. suuragal ma tahay inaadan ogeyn inaad uur leedahay? waa marxalad dhif iyo naadir oo ku dhacda haweenka waana wax dhici kara oo ilaa 2500 oo cunug ayaa sanad kasta sidan ku dhalata dunida.